بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan shacabka Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibadiisa ku sugan waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fariintan waxaan caawid u duubayaa anigoo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir murashax u taagan xilka madaxweynimada Soomaaliya inaan si toos ah taageero u weydiisano shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa intaba walaalayaal sida ogtihiin ma jiro olole doorasho oo ka marma taakulayn iyo garab istaag dadkiisa adduunka dhanna waxaa lagu dhaqmaa dadka u tartamaya xilka madaxtinimada inay taageero iyo gacan weydiistaan dadkooda waxa ayaan darro ah inay caado noqotay ama la caadaystay in lagu faano taageero ajnabi iyo dhaqaale laga helo dowlado shisheeye taasoo keentay in qof kasta oo xilka Soomaaliya ku soo baxo oo maxbuus u noqdo cidii taageertay go'aankeeda anagoo ka duulayna inaan ka xorowno taageerada ajnabiga iyo gacan horsiga shisheeyaha in go'aankeena la yeesho ayaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan weydiisanaynaa inay noo deeqaan oo ayna taageeraan dhaqaalaha intii oo la akaadaba qof walba karaankiisa inuu nagu taageero ayaan ka codsanaynaa si go'aanka iyo talada ay shacabka Soomaaliyeed u yeeshaan loogana xoroobo looga madax banaanaado talinta ajnabiga iyo taakulaynta shisheeyaha intaba waxaan inkugu baaqayaa oo in ka rajaynayaa oo in ka codsanayaa in aad na taageertaan oo aad gacan noo fidisaan waxaan u mahad celinayaa dadka taageerayaasha u ahaa xisbiga wadajir intii uu soo jiray oo gacanta la garab istaagnaa waxaan uga mahad celinaynaa taageeradaas xoogga leh ay nala garab taagnaayeen sanadihii adkaa ee aan soo gudubnay waxaan rajaynaynaa dadkaas oo u mahad celinaynaa kuwa kalena waxaan ka rajaynaynaa inay nala garab istaagaan taageeradaas waxaan ugu baaqiyaa musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada inay dadkooda taageero weydiistaan gacanna ka raadsadaan shacabkooda intii ay magan geli lahaayeen ama ay ka raadsan lahaayeen ajnabiga waxaan mar kale ku celinayaa oon abiil u dirayaa oo aan codsigayga ku xoojinayaa shacabka Soomaaliyeed inay taageero noo fidiyaan taageeradooda ayaana nagu filan iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo aan tala saarano guushana waan gaari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo dhaqankaas cusub iyo sunnadaas cusub ayaan doonaynaa shacabkeena inaan u bilaawno waa maasantiin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh